waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka. فصل كسيدات عشر كنا ننظر واحد كسبسية غتفكين الشناط وها هيدا عالمية هيدا عصر كمان طيب ودنا ونلالين تاني البلية اللي يحسنون لها أدوك ودنا اللي بتشري بلو بقرن كنا وطنات واحد دوك كذا عين بدأ يرويني كيكو بعد كل صلاة وليافر يترون في إلا كل صلاة ولي سيدي يترون في بلو ضيق سنة مرقوها كل صلاة وليافر يترون في لماضينا سنة مرقوها كل صلاة ولي سيدي يترون في iyo dagaalkii labada adduunka oo bilaabay 1939 ilaa 1945 dagaal waliba marka uu dhamaado dib waxaa kadib markuu dhamaado kadib dowladihii ku lug lahaa waxa ay isku dayeen inay dhaliyaan dagaal waliba marka uu dhaco kadib ee dowladuhu ay soo burburaan ee dhaqaale burbur badan ay u yimaado dowladihii dagaalka ku lug lahaa ama dowladihii dagaalka dhaliyay riday dagaalkaas ama dagaalka ka qayb galay oo dhami waxa ay isku dayaan in ay dib u soo celiyaan nabadda adduunka ee ayagu burburiyeen waxa la sameeyaa dadaallo lagu sugayo nabadda adduunka waxay galaan inay dadaal badan u galaan sida ay u sugi lahaayeen nabadda adduunka ee wadamada adduunka ay ugu soo noqon lahaayeen xasiloonidii iyo kala dambeyntii wadamada arrintaasi waxay ahayd tallaabo cusub oo aan hore loogu arag adduunka dagaalka kuwa markuu dhamaaday arrintaas ay ka shireen wadamada adduunka ee ku lug lahaa dagaalkaasi waxay adduunka ku noqotay arrin cusub oo aan hore u dhici karin ama hore u dhici jirin madaxweynihii maraykanka ee xilligaas Woodrow Wilson ayaa soo gaaray Faransiiska bishii Diseembar 1918 si uu uga qayb galo shirkii nabadda ee Paris madaxweynihii maraykanka ee xilliga ahaa markii dagaalkii koowaad ee adduunka dhamaaday madaxweynaha ka ahaa waddanka maraykanka ayaa wuxuu u soo ambaxay waddanka Faransiiska oo lagu qabanayay shirkaas bishii Diseembar 1918 markii uu dhamaaday dagaalka si uu uga qayb galo shirkii nabadda halkaasoo lagu qabanayay shir nabadeyn ah oo ay wadamada adduunka isugu yimaadeen oo magaalada Paris ka dhacay wuxuu soo bandhigay 14 qodob si looga hortago dagaal kale oo dhaca wuxuu soo bandhigay madaxweynaha maraykanku 14 qodob oo markii uu arkayay inay yihiin kuwo wax ku ool ah 5 qodob oo ugu muhiimsanaa oo laga soo qaatay ayaa waxay ahaayeen ama ka mid ahaa kow inaanay dhicin heshiisyo qarsoodi ah oo ay dowladaha dunidu wada galaan ama dhex mara dowladaha dunidu shir qarsoodi ah oo laba wadan dhex mara ama laba dowladood oo gaar ah dhex mara inaanu dhicin ee uu noqdo shirka dhacaya ama heshiiska dhacaya ama waxyaabaha laga heshiinaya ay noqdaan kuwo wadamadaas oo dhan ay isugu yimaadaan oo ka heshiiyaan si ay arrintaas u noqoto mid meel mara oo labada wadan markay keligood gooni u heshiiyaan hadhowta haddana aan khilaafada hor imanin laba Biljamku inuu dib u helo gobonimadiisa waddanka Biljamka oo markaa ka mid ahaa wadamada ayuu shirka laga soo qaybgelinayay oo haddana aan gobonimo haysanin ayaa isagana waxay doonayeen in gobonimo la siiyo waxaa kaloo ka mid ahaa qodobka saddexaad oo ahaa in badan loo sameeyo dowlad madax bannaan dowladda waddanka badan in isagana loo sameeyo dowlad madax bannaan isagoo waddan kale ku tiirsanaa oo aan madax bannaani gaara haysanin qodobka afraad xorriyadda baduhu inay noqoto xuquuq ay wada leeyihiin dowladaha adduunka oo dhan xorriyadda badaha in waddan waliba badweynka laguleeyahay badweynka caalamiga ay noqoto xuquuq ay dowladaha adduunka oo dhan u siman yihiin oo aan dowladina gaar u sheegan karin ama dalna aan gaar u sheegan karin badday isugu leeyihiin qodobka shanaad waxa waa in ay dhammaan dhinacyada ishayaan wada sameeyaan ururkii ummadaha wadamadii ama dhinacyada iska soo horjeeda dagaalka isku hayay ay samaystaan inta isu yimaadaan ka wada xaajoogaan sidii loo samayn lahaa ururka ummadaha oo la sameeyay dagaalkii koowaad ee adduunka dhammaadkiisi markuu dhamaaday dagaalka si loo baajiyo dagaal kale inuu dhaco ama aan mar dambe soo noqnoqonin dagaaladu iyo ujeedada ay markale u sameynay lahayd madaxweyne Wilson waxa uu aaminsanaa in adduunku soo gabagabeeyay dagaal oo dhan madaxweynihii maraykanka ee qodobada soo dejinayay markuu qodobada sheegay ama soo dejinayay
waxa uu aaminsanay adduunka oo dhan dagaal soo gabagabeeyo oo dagaal daba dhici doona waxa uu rajaynayay nabad waarta waxa uu rajaynayay ama uu doonayay in adduunka ama caalamka ku wada noolaado nabad waarta hase yeeshee wuxuu arkay inaanay suurtagal ahayn nabad waarta waayo wuxuu arkay markiiba waxaa kasoo dhex baxay in ay wadamadu aanay ahayn kuwo isku kalsoon ama kuwo heshiis ah oo nabad darin karaya aanay ahayn ayuu markiiba dareemay waayo markii horeba looma ogolaanin Jarmalku inuu kasoo qayb galo shirkii nabadda dowladdii Jarmalka oo ahayd dowladdii loo tirinayay markaa inay iyadu ka dambeysay dagaalkii adduunka ee dhacay ayaa iyada shirka laga soo qayb gelin oo shirka ka maqan ayaa shirka la qabtay sidaa daraaddeed ayuu Wilson markiiba waxa uu dareemay in aan meeshaan nabad ka dhacayn maadaama ay wadamadii ka kala maqan yihiin oo wadamadii loo tirinayay dagaalada aadka u fara badan ama dhibaatooyinka aadka u fara badan ee laga doonayay in wadamada kale iyagu markaas soo dhaweyn ama raadinayaan ay meesha ka maqan yihiin Wilson wuxuu rajaynayay in Jarmalku uu kasoo qayb galo shirka wuxuu doonayay in Jarmalku loo yeero uu shirka kasoo qayb galo laakiin dalalkii kasoo horjeeday Jarmalka ayaan doonaynin inay arrintaas ka xajiyaan ama ay arrintaas dhacdo wadamadii Jarmalka kasoo horjeeday dagaalka isku hayeen ayaa doonayay in Jarmalka arrintaa la ogeysiinin iyagu shirka ay gabagabeeyaan waxay doonayeen inay Jarmalka u yeeriyaan shuruudaha nabadda wixii iyagu ay soo dejiyaan in Jarmalku isagoo halkiisa jooga u yeeriyaan dabadeetana ama isagu ha ku qanco ama ha ku qanci waayo isaguna aanay ku talagelin inuu aqbalo ama uu diido isaguna inuu arrintaa ama aqbalo uu diido ayay ku talagaleen oo aan soo doono ka yeelo laakiin iyagu ay sidaa go-aanada ugu gudbiyaan Jarmalka dhinacyada iska soo horjeeday ee dagaalka oo dhami kumay wada faraxsanayn dhinacyada jirka isugu yimi oo dhami meesha waa la iska wada fadhiyay laakiin laguma wada qanacsanayn ujeedada shirka ama go'aamada shirka kasoo baxay kuwa lagu wada qanacsanyay ama ay ku wada raadinayeen may ahayn oo natiijadooda shirkaas kasoo baxday ay wada doonayeen ama ay ku wada faraxsanaayeen Jarmalku waxa uu arkayay nabad lagu qasbayo Jarmalku waxa uu arkayay inay tahay nabad lagu qasbayo ee aan ahayn mid isaga kasoo waday ama mid isaga loola yimi ama mid isaga laga talageliyay aan ahayn mid ah qasab iyo sanduuqyo lagu gelinaya inay tahay Faransiiska iyo Ingiriisku waxa la siiyay dhul laga soo gooyay dadka Turkiga oo ahaa dhul ay dusha ka ilaalin jireen wadanka Faransiiska iyo wadanka Jarmalka waxa la siiyay dhul badan oo laga soo gooyay wadanka Turkiga iyo wadanka Ingiriiska oo ay markii hore dusha ka ilaalin jireen xilliga dagaalka kadib markii shirka ay galeen iyagoo intaas ayay qaateen dalalkii gumaystayaasha qaarkood waxay kala qaybsadeen dhulalkii uu Jarmalku ku lahaa dibadda sida mustacmaradihiisii Afrika wadamadaasi ama wadamo badan oo Yurub ka mid ah waxa ay qaadanayeen ama waxay qaybsanayeen dhulalkii Jarmalku Afrika ku lahaa ama mustacmaradihiisii dhulkii uu gumaysan jiray isagoo Afrika in ay qaataan maadaama shirku ka maqay go'aamadan aan ku jirin in ay iyaguna wadamadaas kala hoos baxaan oo ay iyaguna arrintaa ka faa'iidaystaan Faransiiska iyo Ingiriiska lagama siinin wax mardhow khasaarihii kasoo gaadhay dagaalka waxay sugayeen iyaguna in mardhowshiya la siiyo maadaama khasaarada uu kasoo gaadhay dagaalka Jarmalkana iyagu jebiyeen in ay helaan mardhowshiyo ama dib loogu soo celiyo wixii khasaare ka gaadhay dagaalka oo ay u helaan dib wixii ka burburay hase yeeshee dowladaha adduunka oo dhami arrintaa iyada ah kumay wada farxin oo qolo walba ujeedo gaara ay watay markii shirka la isugu marayay cid walba ujeedo gaara ayay lahayd ujeedadeedii hadday ka dhexarki weyday ama wixii iyada faa'iido ama dani ku jirtay markay ka dhexarki weydana cid walba arrintan si gaara ayay u qaadatay wadamo badan dad badan oo Yurub ka mid ah ayaa doonayay in la siiyo dhul ay degaan oo ay ka helaan wadamadan Jarmalka iyo wadamadan lagu dagaalka galay in dhul looga soo gooyo hase yeeshee arrintaa iyada ahna may dhicin Jarmalka naftarkiisu wuxuu doonayay khasaaraha wax looga celiyo hase yeeshee isaga ayaa khasaarihii adduunka ka dhacay oo dhan dusha loo saaray